xiriirka faca weyn u dhaxeeya Ciraaq iyo Turkiga ee salka ku haya isku xirnaanshaha diimeed, dhaqameed iyo dhaqaale ayaa ilaaliyay soo jireenka iskaashi ee labada dal laga soo bilaabo horaantiisii ilaa iyo maanta, waxaana la ogsoon yahay in labada dal ay wadaagaan wabiyada caanka ee loo yaqaan Dijla iyo Furaat. sidaasi awgeed in la helo xiriir wanaagsan waa khiyaarka kaliya ee hor yaalla labada dawladood. wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar oo ka hadlayay arrimaha ayaa sheegay in waddankiisu uu ixtiraamayo xuduudaha dawladaha dariska iyo madax bannaanidooda, isagoo ku tilmaamay joogitaanka ciidamada Turkiga ee waqooyiga Ciraaq mid ku eg la dagaalanka argagixisada. Akar ayaa yidhi mar uu ka hadlayay xarunta Goljog, ujeedkayagu waa la dagaalanka argagixisada, waana in la wada ogaadaa sababta aan waqooyiga Ciraaq u joogna inay tahay argagixisada oo ku badatay mandiqadda. waxa uuna adkeeyey in howlgalka ay ka wadaan Ciraaq uu muhiim u yahay ilaalinta amniga qowmiga ee Ciraaq, isagoo raaciyay ujeeddada kaliya ee Turkigu leeyahay waa amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ee PKK. kooxaha Daacish ayaa caqabad ku noqday ciidamada Ciraaq inay amniga dalka guud ahaan sugaan, sidaasi darteed mas'uuliyiinta Ciraaq ma aqbali doonaan in dalkoodu xarun u noqdo kooxo khatar ku ah amniga Turkiga. waxayna maslaxadda labada waddan ku jirtaa in la helo iskaashi amni oo ka hortaga falalka amni darrada ee ka dhaca xuduudda labada dal. Turkiga ayaa dhinaciisa garawsaday baahida biyeed ee ka jirta Ciraaq ee ay sababtay roob-yarida sanadkan, waxaana dib loo dhigay buuxinta biyo-xireenka Turkiga ee loo yaqaan Alisu ilaa laga gaaro bisha 6 ee nagu soo wajahan. isku soo duuboo xidhiirka Turkiga ee Ciraaq tan iyo markii uu soo bilowday ayaa ahaa mid ku tilmaaman daris wanaag, marnabana ma soo dhexgelin xidhiirka labada waddan mugdi sababi karo xidhiir xumo. xidhiirka labada waddan ayaa noqonaya mid ku suntan ilaalinta madax bannaanida labada dhinac.